madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Eritrea Asiyaasi Afwerki ayaa waxa saacadihii tagay ay soo saareen warmurtiyeed ka kooban 7 qodob oo ay ugu muhiimsan yihiin xoojinta xiriirka labada dhinac sida amniga, dhaqaalaha, waxbarashada iyo arrimo kale. Haddaba goobjooga waxay kula wadaagaysaa warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii ay yeesheen Asiyaasi Afwerki iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Shirkan oo laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban ilaa iyo 7 qodob ayaa waxa uu dhigayay in laga shaqeeyo dhiirigelinta xiriirka bulsho ee labada dhinac gaar ahaan qurba joogta. Madaxweynayaasha ayaa sidoo kale waxa ay ku heshiiyeen xoojinta xiriirka siyaasadeed iyo midka diblomaasi iyo sidoo kale ilaalinta iyo horumarinta danaha labada dal ay ka midaysan yihiin. Madaxweynayaasha ayaa warmurtiyeedkooda ku xusay in loo baahan yahay ballaarinta wada shaqeynta xiriirka dhaqaale midka bulshadeed iyada oo ahmiyad la siinayo ganacsiga, maalgashiga, amniga biyaha, beeraha, kalluumaysiga, caafimaadka iyo sidoo kale waxbarashada kaasi oo qayb ka ahaa nuquladii ka soo baxay warmurtiyeedka ka soo baxay labada dhinac ayaa sidoo kale dhigayay dhiirigelinta dhaqanka sugaanta iyo cayaaraha iyo sidoo kale sidii looga wada shaqeyn lahaa xiriirka xagga cilmiga iyo tiknoolajiyadda ee labada dawladood ee dhaca qaaradda Afrika geeskeeda bari. warmurtiyeedka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Asiyaasi Afwerki kulankooda ay ka soo saareen ayaa sidoo kale waxa uu dhigayaa in loo baahan yahay ka wada shaqeynta ka hortagga iyo kor u qaadista wacyigelinta la xiriirta arrimaha deegaanka, cimilada iyo sidoo kale cudurrada faafa. Xasan iyo Afwerki waxay sidoo kale isla garteen intii shirkoodu uu socday ee warmurtiyeedka ay ku xuseen in loo baahan yahay labada dawladood waa Soomaaliya iyo Eritrea in ay ka wada shaqeeyaan kor u qaadida difaaca, amniga, ilaalinta nabadda, xasiloonida iyo sidoo kale amniga labada dadweyne ee Soomaaliya iyo sidoo kale Eritrea. Ugu dambeyn, labada madaxweyne ayaa ku heshiiyay in loo baahan yahay in si wadajir ah ay labada dawladood isugu dayaan sidii loo horumarin lahaa xiriirka diiran, wada shaqeyneed iyo dhaqaale ee gobolka Geeska Afrika. Madaxweynayaasha ayaana ugu dambeyntii qalinka ku duugay heshiiskan oo ka dhacay magaalada Asmara ee caasimadda u ah dalka Eritrea. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu dalka Eritrea ku tagay booqasho qaadanaysay muddo 4 maalmood halkaasi oo uu kula kulmay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa badda oo tababaro kala gedisan ku qaadanaya gudaha dalka Eritrea muddo dhowr sano ah. Madaxweynaha ayaana ugu dambeyntii waxa garoonka diyaaradaha Asmara ka soo sagootiyay isaga iyo wafdigiisa dhigiisa madaxweynaha dalka Eritrea Asiyaasi Afwerki. Xasan Sheekh Maxamuud ayaana soo gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kadib booqasho 4 maalin qaadanaysa oo ku tagay gudaha dalka Eritrea.